السلام عليكم ورحمة الله. كيما هو عبسده بدن عالمك muuqaalkeena maanta waxaan kusoo qaadanaynaa shanta kayn ee ugu cabsida badan caalamka. way jiraan kaymo badan oo aad u cabsi badan, laakiin halkan waxaan kugu soo xulay shanta kayn ee ugu cabsida badan caalamka. ka hor intaanu muuqaal guda gelin, fadlan haddaad xiisaynayso muuqaalada noocan oo kale ah, like saar si aan ogaano inta qof ay xiisaynaysa muuqaalada noocan oo kale ah. mahadsanid. Black Forest, kaynta madow Jarmalka. waddanka Jarmalka waxaa ku yaalo kayn la yaab leh oo hareeraheeda ku wareegtaan qisooyin cajiib ah. kaynta madow waxaa lagu magacaabay inay kayntu tahay kayn aad mugdi ah geedaha faraha badan ee ku yaala awgeed. kayntaas dhexdeeda waxaa lagu sheegaa inay ku jirto sixirka madow, midda ayaa ka dhigayso mid ka mid ah kaymaha ugu cabsida badan caalamka. Wedgwood Forest, kaynta Wedgwood waa kayn ku taal dalka England, wuxuuna ka mid yahay kaymaha ugu cabsida badan caalamka. kayntaas qisadeeda oo ah mid la yaab leh ayaa waxay ku bilaabanaysaa sidan. waxaa lama filaan ah loo ogaaday geeridii Amy Robinson oo ahayd xaaska Earl. lama yaqaano wax ka dambeeyay geerideeda, laakiin waxaa la arkay iyadoo qoorta ka jaban tahay. geerideeda kadib, saygeeda isagoo ugaarsi ku jira ayuu wuxuu la kulmay xaaskiisa oo goor hore geeriyootay, iyadoo sidii carfid oo kale ah. la kulankeeda kadib, ninkii wuu xanuunsaday wuuna geeriyooday. qofkii la kulmay haweenaydaasna si dhaqso ah waxa u siibaysaa aafad daran. waxaa sheega in kayntaas markaad dhex joogto aad arkayso gacanka taabanayso garabka adigoo keligaaga ah oo cidina ay kuli joogin. sidoo kale waxaa lagu arkaa gaari faradeed oo ay saaran yihiin laba caruur oo qaylinaya ama oonaya. Epping Forest, kaynta Epping waa kayn ku taala dalka London, baaxadiisuna waa 2400 hektar. waa meel loo ogol yahay booqdayaasha. sanadii waxaa booqdo dad gaaraya 4 milyan, laakiin waa meel cajaa'ibteeda leh. Epping Forest waxaa lagu sheegaa inay tahay meel cabsi badan. dadka booqday waxay sheegaan in haddii gaarigaaga dhigato meel ka mid ah kaynta, aad arkayso in gaarigaaga si tartiib ah loo dhaqaajinayo, xitaa haddaadan aaminsanin khuraafaadka. kaynta Hoyapachia ee dalka Romania. waddanka Romaniga ee bariga Yurub waxaa ku yaalo kayn la yaab leh. waa kayn qofkii uu galo uu dareemayo wareer yaqyaqsi sabab la'aan ah. dadka booqday waxay leeyihiin xilliyada qaar waxaa la maqlaa khaylo aan la ogeyn waxa ay tahay iyo meesha ay ka imaanayso. xitaa geedaha ku yaala kayntaas waa kuwa cajiib ah oo ka duwan geedaha kale. waa geedo khalkhaloocan. dadka deegaankaas waxay leeyihiin waa meel uu degan yahay shaydaanka, laakiin xaqiiqadeedu ma naqaano waxay tahay. Islands of the Dolls, jasiiradda boombalaha. waddanka Mexico waxaa ku yaala jasiirad aan lagu nooleen, laakiin ay yaalaan kumanaan boombalo oo geedaha ka laalaada. qisada jasiiraddaas waxay bilowatay waqti laga joogo 70 sano. nin ka mid ah dadkii deganaa deegaanka ayaa haweeney dariskiisu ahayd qarqoontay, waana la waayay meydka haweeneydaas. sanado kadib ayaa waxaa la helay boombilo yaala meesha ay ku qarqoontay haweeneydii. markii ayuu ninkii yaqiinsaday inay tahay ruuxda haweeneydii la waayay meydkeeda. marka ayuu biloobay inuu keeno bambalooyin badan asagoo aaminsan inay shayaadiinta ka xijaabayaan. jasiiraddu waxay noqotay mid booqdayaashu ay qisadeeda soo jiiteen, markaana ay keenaan bambalooyin badan iyagoo u hadiyanayo kuwa kale. waxaana la sheegaa in mararka qaar la arko in bombalayaashu ay madaxooda gacmahooda dhaqaajiyaan, indhahan ay furaan. waxaa kaloo la sheegaa in xataa mararka qaar ay bixiyaan cod ama khaylo. ma ku lugayn lahayd kayntaas iyadoo habeennimo ah? haddaba ra'yigaaga noogu sheeg deegaan ugu cabsida badan deegaanada aan ka soo sheekeynay.